halkani waa hoolka uu ka qabsoomay dood cilmiyeedkii loogu magac daray dhaqanka iyo dimuqraadiyadda waxaana madashani lagu soo marti qaaday Professor Axmed Ismaaciil Samad waxaana uu ugu horeynba faahfaahin ka bixiyay dhaqanka iyo dimuqraadiyadda horta dimuqraadinimadu waxa weeye dadka meel ku wada nool sida ay u tashanayaan inay dhistaan nolol ay ku wada badhaadhaan in la helo dimuqraadinimadu horta waa taas marka cadaaladda iyo dimuqraadinimaduna way wada socdaan anu dadka waxaan ku yiraahdaa markaan imika wada doodana Hargeysa dhulkaan doodana waxaan ku yiraahdaa laba xaq baa yaala Soomaaliland markaa labada xaqna sida la iskugu keenayo ayaa lagu qiyaasaa dadka wadan madax u ihi inay karti la yimaadaan oo waxaan wadi karaan iyo in kale culture arinta sida hadeen dhaqanka kelmad kale oo ka culus waxa la yiraahdaa civilization waxa weeye marka dhaqanku intuu koro uu wax kala noqdo weynaado deetana uu sameeyo waxa la iska dhaxlo oo lagu faano Professor Axmed Ismaaciil Samatar waxa uu sidoo kale madashani kaga hadlay dood uu qabo Professor Ali Khaliif Galayd oo ah in la furo dastuurka Soomaaliland way dastuurku wax kale maaha waa qawaaniin la ururiyay oo lagu heshiiyay in lagu dhaqmo markay xanibantay la isqabtana dastuurku yahay waxa kala saaray Professor Ali Khaliif Galayd wuxuu ku leeyahay dooda uu soo dhigayaa waxa weeye dastuurkii Soomaaliland waa in la furo oo deetana la eego meelaha wali amba aanu ka dhamayn amba uu ka xaniban yahay dhibaatooyinka taagan waa in la furo now waa laga yaabaa cali hadhow doodiisa Dr. Ali uu keenay arrimaha leeyahay la bedelo dooda lagaga adkaan laakiin aan lagaga adkaan uu ku hagaagsan yahay dastuurku waa wax bini aadam samaystay oo kolba u baahan in la bedelo wax laga bedelo kolba waqtiga jooga soo garamay adduunyada dimuqraadiga way ku wada dhaqanta madashani dood cilmiyeedka waxa Professor Axmed Ismaaciil Samatar lagu weydiiyay su'aalo khuseeyo muddo kordhinta waxaan weydiin lahaa professorka muddo 17 sanadood oo geedi socodka dimuqraadiyadda ay Soomaaliland qaadatay 10 muddo kordhinood ay golaha guurtidu u sameeyeen golayaasha qaranka iyo xukuumadihii kala dambeeyay professor ma jira xiriir ka dhaxeeya dhaqanka bulshada Soomaaliland iyo muddo kordhinta waqtiga loo xadiday markii hore dadka kuraasida ku baarlamaanka ha noqoto hoose guurtida ha noqoto wax kordhida ha noqoto deegaanada ha noqoto inta noolaa ma arag weliga yaray meel la kuma aqrin baarlamaan 9 sanadood waqtigiisii ay dhaaftay bir horu qaysay baarlamaanka ruuxaasi waa xaraan weey nisay muuqato waa ceeb weey waa foolxumo dimuqraadinimada sheeganana nafta ka jabinaysa marka arinta kordhisku waa ceeb way naaqusaysaa hamadeena adduunyadii bay maxaan ku raahay inuu fool xumaynaysaa dadkii ina taageeraya bay naga yaacaya Farxaan Cabdi Ciise Honkable TV gobolka Gabiley